عقال sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Awdal oo awal aaminsan mabaadi'da Soomaali weyn balse haatan sheegay in ay aamineen mabda'a Somaliland iyadoo uu hogaaminayay Caaqil Cabdisamad Fajac oo ah caaqilka dalalka Scandinavian-ka beelaha Habar Carfaan sidoo kale waxa ku jiray siyaasiyiinta Cabdillaahi Daahir Booq iyo Cabdillaahi Ismaaciil Kaahin Caaqil Cabdisamad oo ka hadlay arrimaha sidoo kale ujeedada uu haatan u qaatay fikirka Somaliland ayaa waxa kamid ah ereyadiisa sidaan Cabdisamad Fajac waxaan ahay caaqilka beesha Habar Carfaan ee Scandinavian-ka anigoo ku hadlaya siyaasiyiin iyaguna ila socda annagoo aaminsanayn kana soo horjeedna afkaarta Somaliland kana mid ahayn dadkii in badan isku dayay inaan ka soo horjeedno waxaa noo yimid bifadlillah wasiirka iyaga waxbarashada aan caaqilkana u ahay wuxuu in badan isku kaayadayay oo ilaa maalintuu yimid ilaa maanta xooga saaray inuu naga dhaadhiciyo in Somaliland la wada leeyahay in Somaliland aanu simanahay inayna cid gaari lahayn si fiican buu nooga dhaadhiciyay aad baan uga mahadcelinaynaa saacatul wasiir aad baan kaaga mahadcelinaynaa adiga oo ah nin xoogagaal ah Somaliland adiga oo ah nin ka soo taliyay nabadeyntii ilaa ka gaaray heer wasiir aad baan kaaga mahadcelinaynaa haddii aan sheego labada mataqaanaa siyaasi Cabdillaahi Daahir Booq oo caawan halkan madashan nafkiisa ku hadlayo isna inaga maqan iyo Cabdo shaqo ku maqan oo soo haleeli waayay laakiin aniga idinka wada anigaana ka mas'uul afkiisina ku hadlay siyaasiga kale mudane Cabdillaahi Ismaaciil Kaahin oo isna halkan fadhiya oo isagana afkiisa ku hadlayo isaguna jooga isaguna sidaas ayaanu diyaar u wadanahay siyaasi Cabdillaahi Ismaaciil Kaahin ayaa isagana waxa uu ka hadlay ujeedada uu haatan ugu soo biiray dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyaga oo dhinaca kalena sheegay siyaasiyiintan iyo cuqaashani in ay ka mid noqon doonaan xusbi qarameedka kulmiye waxaana siyaasi Cabdillaahi ka mid ahaa ereyadiisa sidan aad saan horabooda ugu sheegay idinku sheegay aad ayaan ugu faraxsanahay uguna qanacsanahay inaan ku soo biiray xisbiga kulmiye haddaba anigu ma yahin nin iskaga soo biiray oo iska soo galay ujeeda la-aan iyo aragti la-aan ma ihi waxaan ahay nin wax badan darsayay kana fiirsanayay kusoo biirida xisbiga kulmiye nasiib wanaag waxaa suurtagal noqotay caawa inaan ku soo biiro kadib markii muddo badan aan xiriir rag badan oo maaragtay madaxda ah maaragtay aan xiriir lahayn oo ugu horeeyo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane Cabdillaahi Ibraahim Habane sidoo kale wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo isboortiga Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin oo haddana ah adeerkay rumaad waxa caawa ay tahay taariikh wasiir inala jooga weeg gudihii in uu ku kasbado qulubta iyo maxay ogolaanshaha iyo raacidda dad aqoon leh fikirkooda ku socday aaminaad kala haystay inay caawa halkan inooga markhaati kacaan ilaa caaqiladoodii ilaa aqoonyahankoodii in ay Somaliland iyo xisbiga xukuumadda xisbi xaakinka kulmiye ay ku soo biireen markaa waxaan leeyahay mudane wasiir hambalyo caaqilka guud ama chief caaqil baa la yiraahdaa xagga iyaga chief caaqil Cabdisamad oo chief caaqilka guud ee halkan magaca uu ka socdana ku ee isagu hore u sheegay iyo aqoonyahan Cabdillaahi Maxamed Ismaaciil oo aan anigu adeer u ahay
si gaaran aan ugu faraxsanahay markuu wax walba eegay halka aan taaganahay inaynay dhaafaynin uu eegay markii dambe Somaliland ba deetana aniga soo garab joogsadayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillah ragga naga aqbalay na ajiibay aad iyo aad u mahadsan yihiin booq iyo Cabdilaahi iyo ragga kale ee la midkiiba way hadad erga noqoto oo ergadaada la aqbali waayo waa guul darro weyn weeyaan marka aad bay noo aqbaleen way mahadsan yihiin